ما شاء الله وكون كلها عصب وهذا الصوب حيواني سوق الجلي Galkacyo iyo guud ahaanba Soomaaliya ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa maalmaha ciida maadaama ay foodo aynu ku soo hayso mar aynu booqanay suuqa Westgate ee magaalada Galkacyo ayaa halkaasi aynu kula kulanay qaar ka mid ah ganacsatada suuqaana iyagoona warbixin ka bixiyay qaabka iibka ganacsiga ee suuqani waxaan ahay dadka suuqa Westgate degan familka ayaa waxay ku leeyihiin carwo dabcan sida la socotaan Ciidul Adxaagi ayaa loo diyaar garoobayaa dad iyo kala duwan baa suuqa soo galaya ma sha Allah kullay ciidu dad waaweyn iyo dad yar yarba waxa la yiraahdo ciidayaan sida arkaysan de suuqa dad iyo badan baa soo galaya marka kullay ummadda islaamka ah iyo dadka Soomaaliyeed dhamaantood waxaan leenahay Ciidul Adxaa ciid wanaagsan anaguna kala hadaan suuqa joogno dad iyo kala duwan oo caruurtii oo maaragtay dharka ciida loo gadayo dadkii waaweynaa oo iyaga laftirkoodu maaragtay ciidan ciidaya marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo shacab weynaha waxa weeye adduunka waxaan leenahay Ciidul Adxaa ciid wanaagsan insha Allah ما شاء الله waxaan joognaa xilligii ciida waa nalaga adeeganayaa si sharaf badan waxaan gadaynaa gabdhaha dharkoodii aroosadaha kabahoodii shukooyinkoodii sadadkoodii dharkoodii kulli waan gadaynaa waxa kaloon gadaynaa dhalinyarada kabahoodii isku joogyadoodii in allaaliyo inta carwada laga heli jiraan laga helaa oo haddana raqiisa shayga carwada 20 lagu gado 15 baan gadaynaa ما شاء الله هذا dadweynaha waxaan u sheegaynaa inay soo aadaan Westgate nagana adeegtaan iyo waxa la wixii carwada yaalina waan haynaa nooc yihiinba xilliga ciidka waa ciid xilliyada kale ayaduna waa nalaga gataa wixii ilaahay noo qoro waa naloo yimaadaa waa nalaga gataa dhalinyarada noo timaada dadka faashinka doonaya noo yimaada annaguna wixii nalaga sinaloogu yimaadaba waan haynaa ciidka hore iyo ciidkan ciid weyn iyo ciid yaray baa u kala naqaanaa hadda ciid yareydii baan joognaa iyadana ciidan waa la adeegtaa hodeegeedu wuxuu badan yahay 2 habeen hal habeen caawada soo socota iyo caawada ku xigta baa insha Allah waxaan rajaynaynaa suuqa ciriiri inuu noqdo sidoo kale waxaanu la kulanay mid ka mid ah caruurta u soo aaday suuqa in uu ka iibsado labiska ciida carafo maadaama ay naga xigaan maalmo kooban isagoona tilmaamay inuu aad ugu faraxsan yahay qaadashada dharkii ciida uu uga qayb qaadan lahaa magacaygu waa Yaxya Abdikariim Maxamed waxa soo duntay dhar ciid oo dharkaag waa kuwana maxay ka kooban yihiin khamiis iyo kabo iyo alaab kale waliga si dhiman ku raadinayo maxaa kamid alaabtaasa surweel khamiiska ka hoos xirto iyo bahalkiis iyo imaamadii koofiyad iyo saacad baabuurtii iyo alaab-alaaweedii wax ma haysatin miya ani baabuur ma isticmaalo haynin weyn waa ka weynaatay miya waxaa dareemayaa farxad iyo mataqaanaa waxaan la soo koobi karin mid ka mid ah ganacsatada suuqa magaalada Galkacyo ayaa tilmaamay in ciidan ay ka duwan tahay ciidihii hore sabab la xiriira sicir barar iyo lacagaha shilinka Soomaaliga oo aan shaqaynayn ganacsigu waa iska nasiib laakiin xilligan iyo xilliyada hore wax badan baa u dhaxeeya marka hadda aad u hoos jira way maalmaha ciidka waxyaabo laga gadanayo waxa u badan adeega wiilasha carruurta yar gabdhaha iyo kurayada iyo gabdhaha yar iyo waxyaalahaas oo badan ciidka hore farqi nooc aad iyo aad wax weyn baa u dhaxeeya waxa u dhaxeeya wixii hore waxa ahaayeen dadku dhan baa ka qayb galaya laakiin hadda shakhsiyaad kooban oo arkaysid oo 5% aan dhammayn baa suuqa soo galaya waxa ugu wacan lacagta Soomaaliga ka baxday fursadda iyo dhaqaalaha iska yaraadaba dadka aad ka dareemaysid dhaqaal xumo inay jirto awalow suuqa uu mashquul yahay inta aad joogto haddana waa mid ka duwan ciidaha hore oo dadku waxay ku leeyihiin tani waa ciid yaray Nasteh Cabdisalaam Barre warbaahinta meeraysane Galkacyo